digaarkayga sharma boyna waa salaama abtigay waxaan leeyahay abti lambar 1 aad tahay another level aad tahay laakiin sheekada aniga maskaxdayda ka gadmi weysay waxay tahay oo aan la yaabay markii aan arkay nin isku soo xiray studio loo ekeysiyay masaajid ee gantaalo ku soo garaacay ninka sharma boy si showgiisa u baajiyo sharma boy waxa soo dhaweysay gabar hal shay ma wadato hal shay iidoona wadan ay sharma boy soo dhaweysay markaasuu ku dhuftay dhaj oo ku boobo walaaltinimadu maxay tahay hadaan waxba la isla cabaynin maya saas ma dhihin hada la socdo dabadoo ka qabtay uu ku dhagdhagaayay dadkan waaweyn ee sharma boy weerarka ku soo qaaday ee raba macnaha inay carqaladayeen ee showgiisa hor istaagaan waxay ku doodayaan waxay leeyihiin sharma boy Mareykan markuu tagay gabdhaha soo dhaweeyay walaalihii ma ahayn isagu wuxuu taagay waa walaashii macaan gabadhan soo dhaweysay iyagu waxay taagayeen no walaashiis ma aha sabab maxay walaashiis ku noqoys maya dabadoo gacanta ka saara السلام عليكم صاحب بيال ملك سو joogtaan si kasto muuqaalkayga idin soo gaariyaba halka diga daawanaysaan waa channelka Shaacir Sheekeye walaakin Shaacir Sheekeye ku soo dhawaada barnaamijka lahaynta bulshada oo aan idinku hay Soomaali israacdan doonayna markay noqoto mar wanarkayna cayaanka doolana wanduqayna waa taa saaxib yaal intaan barnaamijkii u gudgelin fadlan subscribe sa channelkayga sidoo kale like la dhac muuqaalkan si uu gaar saaxiibada waa taa Soomaalidu waxay tiraahdaa mulaca dhalaanku dhayal bay dhagaxa ula dhacaan isna waa dhimashadiis ani ahaan wax iga yaabiya maanta baraha bulshada ku arkay taa oo ah in qof loo ataagireeyo wax aan macquul ahayn yani dagaal qofku waa lagu sameyn karaa oo wal hordumi karaa oo dagaal wali waxa jira dagaal la feel la yiraahdo iska dab wareega oo lagu sameyn karaa laakiin cadaawad inta la eg waliga Ilaahay anigu ma arkin fanaanka sharma boy ahaa oo tan iyo markuu Mareykanka tagay ay soo wajahayeen dagaalo duufaanadooda wata iyo daadad aan harqanin ayaa waxa la isku day rabaaba in gabi ahaanba ujeedka sharma boy halka u tagay la afgambiyo maadaama ugu dambeyn maantay bartiisii TikTok oo 750,000 maraysa hawada laga saar sharma boy dagaalka lagu soo qaaday inuu cidiye ka diraya waxa dareemi kartaa markii ceeb looga dhigay in walaalihiis ay garoonka ku soo dhaweeyaan family kiisa bas aa u imaada sharma boy it's only family not the other people waa ka saarooda weeye that's the way oo maantino oo hadaba yaa soo dhaweeyay marka hadduu soo walaalihiis laabta ku qaban oo aysan soo dhaweenin madad ajnabi ayaa soo dhaweyn lahaa hadaba sheekada la yaab kale ee sharma boy wax Mareykanka ka qabsaday iyo sababta ay fanaaniinta America sharma boy ugu soo dhaweey waayeen halka arimaha oo dhan intaan u gadagelin bal wax yar muuqaalkan aad ka yaabi doontaa oo daawan atana asma magaba qalad baa inaan magaceeda sheego abo midana waa mid kale mid kalena waa mid kale ma fahantay ay 2016 Mareykan ma aysan iimaane macna hadalkayga iga daba dhacay marka waxaan u sheegay labadii gabdhoodba hadii la kala saari waayay sida lagu kala saaray milyuumaanka waxay isku fureen 30,000 meesha la dhigay afaaraha si ku ogaadeen labadii sawir bayba kala qaadi waa inay laba gabdhood kala yihiin baba dadka sheegi waayeen beentii la iska daayo gabadhan anaga meesha nooga qaada wiilku waaba caan ba haba saarnaada duurab laakiin gabadha meesha nooga qaada laakiin inta maya dagaal ma jiro si walaalnimo ku qaadayna walaalnimo isla su'aalaad fiiri naagtii hore dhaysi sayn baa ku jira see laba qof oo walaala wax isku cabaantii la isku cabaa afka wax la isugu dhiibaa walaaltinimadu maxay tahay hadaan waxba la isla cabaynin maya saas ma dhihin hada la socdo dabadoo ka qabtay uu ku dhagdhagaayay dabada hooyo ma raba inaa caaye dabada ayadaa laga qabtaa walaashiisna dabada ka muusan qaban ha keenan nin raga haday yihiin ama naaga raga haday yihiin car ha keenan sawir uu dabada ka haayo edab darana maya hadda waa na fahansiisay aasuusu ana fahansiisay hadda waa na fahansiisay gabartaan maaha gabarta kale waay sheekadu waa fahanada dadkan waaweyn ee sharma boy weerarka ku soo qaaday ee raba macnaha inay carqaladayeen ee showgiisa hor istaagaan waxay ku doodayaan waxay leeyihiin sharma boy Mareykan markuu tagay gabdhaha soo dhaweeyay walaalihii ma ahayn isagu wuxuu taagay waa walaashii macaan gabadhan soo dhaweysay iyagu waxay taagayeen no walaashiis ma aha sabab maxay walaashiis ku noqoys maya dabadoo gacanta ka saara bal ilaaha idinku dhaarshay qof dhan ayaa waxa loo weerari karaa oo macnaha lagala dagaali karaa
gabadha halkaas soo dhaweynaysay xabadkii ku saartay intii ku gadisay meeqa fanaan baa inta airport oo kala duwan ama Afrika ama Europe ama America lagu soo dhaweynay intaasoo fanaaniin intaasoo dad maalinba la soo dhaweeyaa يعني سو دوينتي wax ka hadla malahan okay tawa garaadiradooda laakiin sheekada la yaabka badan ee inta badan dadka laga gado waxa ay tahay Sharma Boy waa fanaan shacbiyad leh laakiin haduu fanaan shacbiyad leeyahay maxaa America lagu soo dhaweeyay waa si fanaaniinta loo soo dhaweeyo kale taa oo dad badan laga dhacsiiyay marka in Sharma Boy marka laga doonin America ama gabi ahaan bal rabo in la laala showgiisa America lama mid aha Afrika oo kale Afrika waxa arkaysaa markii dad fanaaniin ah imaanayaan ama ay rabaan in show ku qabsadaan ama madaxweynaha ahaado ama nin siyaasi ah ahaado boqolaal dhalinyaro ah gabdho u badan baa waxa arkaysaa calaamadaas u ruuxaya heesaya dikrinaya boodboodiya laakiin America iyo Europe iyo waxa laga mayaa sababtu maxay tahay dadkan qurbaha jooga qof walba dantiisa ku leeyahay qof walba waxa haysata aniga tayda Ilaahay oo ii bixiya haysata mid shaqo ku mashquulsan yahay mid barnaamijyo kala haysta balaayo dhan baaba ku furanba maba awoodaba inuu macna darro garoon soo istaaga ama caan ahaaw ama ha ahaan kaligiina ma aha hadda suldaanka geeska baa kamid ah dadka raba inay girgira showyo ku qabsado ki America suldan sirar lenchiki weyna suldan sirar ninka shacbiyad badan baa jira xilliga fanka fanaaniinta ku jirta ana aan ismalihi saameyn hadii la yiraahdo fanaanka saameyn badan inuu jiro u malaymayo suldan sirar baa jooga oo wuxuu jooga America oo muddo ku dhow hal isbuuc ama isbuuc xataa xawalaha America u jooga marka isagoo suldan sirar America u joogo buu hadana soo dhaweyn iyo baqbaqay midna ma gelin tartiibtiisu xaluush okay dadka waliba lejanka ah ee safaradii waxa ku soo gubtay way ka dhaadhacday yani inaysan soo dhaweyn iyo caalam madaxa lagu suray yani inaysan waxba saameyn lahayn waliba fanaanku wuxuu rabaa inuu show qabsado dad aan arkin ay showgaas ku arkaan macnaha xiiseynay laakiin hadii uu airport ka la soo dhaweeyo oo dadkii dhan airport ugu tagaan si bilaash ah airport ina ka hor istaagi kartay qofka iska tagay ay dadkii dhan ka hor imaadaan waxa lumaysa saameynta ama shacbiyada dadkii ugu imaalaha showga ee xiiseynay sababtoo ah inta badan airport ku soo arkeen heesaha hadii u baahan yihiin waxay ka shidanayaan bluetooth kooda waxay ku xiranayaan samiicadooda kadibna way daranayaan taas soo dhaweynta horta waa sida laakiin sheekada aniga maskaxdayda ka gadmi weysay waxay tahay oo aan la yaabay markii aan arkay nin isku soo xiray studio loo ekeysiyay masaajid ee gantaalo ku soo garaacay ninka Sharma Boy si showgiisa u baajiyo Sharma Boy waxa soo dhaweysay gabar hal shay ma wada hal shay iidoona wadan ay Sharma Boy soo dhaweysay markaasuu ku dhuftay dhaj oo ku boobo taa marka waxay ka dhigan tahay in Sharma Boy safarkiisa oo America ku tagay oo dad badan macnaha dhibaato arkeen si weyn uga soo jeesteen waayo fanaaniin badan baa safra xilligan hadda aanu joogno America markii la yiraahdo fanaaniintii joogto dhan badankood way kala danaysteen macnaha 66 waxa soo dhow maalintii xorriyadda kooda luliya soo dhow wixii dhan baa soo dhow ma fahameysaa marka fanaan walbo meeshii oo wixiisa ka shuban karo oo macnaha xogaa kista yarta keli karo buu isku sii daayay marka dadkii dhan way kala dareereen hal fanaan oo laga dabadhigay arkimayst marka ninka dhalinyarada ah waxa idin leeyahay ka fuqa okay dagaalku marna la qaadan karin marka la kaayis markuu cidiye ka dirka yahay ma dhamaay waa shaxs kor la'aan oo kale aad ma sadashada muuqaalka waa shaxsha galay muuqaalka buuxsan